waxaa si rasmi ah loo shaaciyay natiijada duqa magaalada Minneapolis kaasi oo markii saddexaad uu ku guuleystay Jacob Frey oo xilkan hore u hayay waxaa labadeeda garab taagan Axmed Xirsi iyo weliba fanaanka weyn ee caanka ah Ilka Case oo si weyn u taageersanaa Jacob Frey marka hore waxaan jeclahay inaan ku bilaabo Axmed Xirsi markii natiijada soo baxday dareenkaada soo noqday alxamdulillah dareenkayga waa yani aad baan u farxay kaliya guusha kaliya ma ahayn shacabka nagu xirnaa sida ay dareemeen taasna farxad gooni ay siisay ayadana aad weyn Ilka Case doorashadan waxay ahayd doorasho adag oo wareegii labaad loo gudbay xalay markii la kala tagay cabsi badan way jirta Soomaa meel aan aniga iyo Axmed Xirsi ku jirno كم وحبسي ولقيت كم جرين كم نجري دون إن شاء الله بإذن الله الكريم وحبسي حالي ما جرين ميلان سكوم نهاد dad badan oo Soomaaliyeed oo telefishinka Universal naga daawanaya waxay leeyihiin Ilka Case iyo Axmed Xirsi halkan su'aal labadiin waxaan jeclahay ka wada jawaabtaan waxay taageereen nin aan Soomaali ahayn oo ay ka taageereen wiil dhalinyaro ah oo Mareykanka ku dhashay oo Soomaali ah oo han leh taas maxaa kaga jawaabaysaa aan Soomaaliya marka ay leeyihiin ma Jacob Frey bay ka hadlayaan aad weyn waaye waxaan u maleynaa gabar waxa jirta in adeerkay laxmi u dhalay I remember oo lagu codeeyay oo gabar ajnabi oo rastay la tartamaysay oo waliba dadkan ku sii fogaanaynin gabadha ayada laba remember ninka hadda saa dhahaya laba sac baan bariyay indhaha war gabadha in adeertaa weey war walaashay weey ويسرى أحمد نور عرب هذاك اللحمة ولا لبا صعبان ولقي يقفين هذا نساوي بري لبا صعبان بري ورقبنا أرممبا ورقبنا ينادر تاوي ولا شاوي سومالي هذا الكل ده واحد قبضنا ضدك أنا تاجر السن ما تاجر سنة قبضنا هذا الكسر هذا كان اللو إنه لكن يسرى أحمد نور عرب هل كان أياك السلام ما أنت أياك السلام كرا marka yusra darteed yusra kelima waxa ku dhacday Nasri Maxamed bay ku dhacday oo Yusuf Xaaji bay ku dhacday oo yarkiina Cawiday garaadkii bay ku dhacday Caawid bay ku dhacday oo Soomaali Maxamed qof walba soo istaagay ku dhacday walaalayaal horta maanta ka bilaawato groupkeena magac la yiraahdo dulmidiid baan la bixinaa maanta ka bilaawato ma fahanteen way marka hore u dhacday marka hiil baa ka horeeyay marka kii hore gaalkii hore duu muslim ahaa kana gaal uu yahay dan siyaasaddu ma fahanay aad baan salaamayna dhamaanta taageeraha way Axmed waxa ku dar leed wixii aan dhilaha walaalkay yiri marka ma ahan Soomaali iyo Somaliland ma ahan waxa anaga kacdoonkan u bilownay run ahaantii wuxuu ahaa koox yar oo anaga aan dooranay marka hore aan u dhimanay aan u dagaalanay oo magaca Soomaaliyeed ugu heelinay ayaa marka go'aano gaarayay community-ga u gaarayay ayagoo aaminsan inay kuraasi ku fadhiyaan oo awood ay leeyihiin marka shacabka ka awood badan ayagana waxaan leenahay soo noqda ka fiirsada sababtoo ah dhalinyaro badan oo han laha jirto anigu siyaasadda Mareykanka maray hore u sheegay laakiin dhalinyaro badan oo han laha jirto ama Soomaalimo wax wada raadsano ama wadankan waa la wada joogay qof dhinaciisa ka qaraabto ma fahantay marka insha Allah ta'ala ma ahan wax qabyaalada taas ogow wax qabyaalada kuma jirto laakiin koox yar oo dhalinyaro ah oo anaga aan dooranay oo soo saarnay ayaa marka waxay dareemeen inay ma aragtay ay way ismahadiyaan run ahaantii marka taasna waxa weeye waxaan leenahay waxaan tusaynay kaliya in maantay codkan hadduu midoobo Soomaalida meel fog lagu tagi karo laakiin ayaga go'aansaday inay dadka kala qaybiyaan ayaga qabyaaladeeyay oo meel kasta ka sheegay qabyaaladeeyay waa wareeyay sababtoo ah fiiri markaan leeyahay munaafiqiinta waxa waaye markii aan soo jeesanay oo aan waxaan waa qaldan yihiin haddaad fiirisid wareysiyadooda oo dhan dib ugu noqotid dadka qabyaalada ka hadlayay dadka jaafeynayay dadka caynayay ayagay ahaayeen annaga we maintain campaign-keena wuxuu ku salaysnaa again and again wuxuu ku salaysnaa xushmad walaaltinimo and democracy inuu qofka aadi karo meeshuu doono Soomaalida garanin annaga marnaba wax xun staffkeena volunteerskeena maana sameyn dadka social media joogo we have no control about those guys ma fahanted laakiin anaga waxaan ku dadaalnay in anaga aanan dhihin wax xun haddana ma dhahayno ayagana waxaan leenahay walaalaha iyaga ka soo noqda dib maskaxda soo dejiya tartiib calm down bahashaan
raggii meeshaan korgidin geeyey waa raggaa u jeedid waana lidin soo dejin karaa haddaan rabno ma fahanta just like today ka fiirsada insha allahu tacaala ilkaas waxaa tahay fanaan soomaaliyeed boqorka shanta soomaaliyeed dadka laga guulaystay iyo kuwa guulaystaba fanaan baa u tahay kuwa laga guulaystay ee Cumar Faatax taageersanaa maxaad fariin ah aad u faraysaa dee nin walba horta ikhtiyaar asaga leh qof qasab kulana ma laha qofka bini aadankan inuu xor noqdaa fiican ayagana waa xor anigana xor baan nahay wixii tolnimadana waa gooni Soomaalinimadana waa gooni marka wada dhalanayas laakiin kala idea nahay laakiin campaign-ka uu dhamaaday calanka buluug naga wada dhaxeeya calanka buluuga naga dhaxeeyo Soomaalinimada walaalnimada iyo muslimnimada waliba marka in adeer waxa weeye dadka waa tolkeyga waa Soomaali weeye waan jeclahay haddaan kala idea aan noqonay ma aha inaan anigu xanaaqo ama aan caayo waxa jira dad annagana taageerayay oo isku hayb ah dadka adiga sheegayso meelaha ka caytamay ayagana waxa jira dad taageeraya oo annaga dhankeena dhinacan ah marka waxba qabyaalad meesha ma taalo qabyaalad ma taalo daha qabyaalad ma taalo laakiin qofka qabyaalad ka dhigo asaga qabri la galay qabyaalada ma fahantaa qof walba markuu inta camalka soo godka la galaya Soomaali waa hal walaalaan nahay hal community baan nahay laakiin haddaad iga codayso deena dalaani baranbar miihi dhiig baa igu jiro ogow anigana inaan dad leeyahay oo aan danqanayo oo waxyaalo badan aan ka dagaaltami doono laakiin hadda waxaan u maleynaa ciyaarta man baarto fariinta waa gaar weeye marka aan isfahanno Soomaalinimada wax ka sarreeya ma laha aad baan idin salaamayaa deeq darajana waan salaamayaa walaalkay iga yar ilkaas aad baad maasan tahay fariintaada ugu dambeys adigana bismillaahir rahmaanir rahiim horta dhamaantiin meel kasta joogtaan Soomaali campaign-kan waa ogahay saameyn weyn uu idinku yeeshay waxaan idin sheegayaa inuusan campaign-kan marnaba ku salaysnayn wax la yiraahdo qabyaalad inuusan marnaba ku salaysnayn wax la yiraahdo istirnacay waxaas dhanka ma jirin aragti kala duwan iyo waxay ahayn fikra kala duwan iyo group isbiray inay ayagu magaalada aniga wax xirama soo saari karaan annagana taasaan ka damqannay dadkan u dagaalameynana dad qabiil aniga kaliya haybadeeda ma Soomaaliyeedna ku jirto kuwa annaga isku haybnahay xagga ku jiray oo codeynay marka anaga nala joogeen oo waliba lafdhabarteena ay ahaayeen marka walaalayaal waxaan idin leeyahay insha Allah taala waa guuleysanayna dhamaanteen aan soo shaqeyno Soomaalinimada ha waarto hadee ninkan aniga ilkaas ku tusaale qaata laba meel ka soo kala jeednaa marka waa mahadsantihiin Soomaaliya ha noolaato kulligiin assalaamu calaykum haatan waxaa igu soo biiray Liibaan Xuseen oo ah wariye Soomaaliyeed oo rugcada ah oo ku nool gobolka Minnesota Liibaan doorashada hadda way dhamaatay way dhacday maxaa laga baran karaa deeq darajo adiga iyo bahda Universal iyo xogmaalba waa idin salaamaya na daawanaya run ahaantii doorashadii way dhacday wax badan ayaa laga baran karaa waa la ogaaday Soomaali inaysan Soomaali ka adkayn hore ayaa loo soo tijaabiyay wadankii ayaanu isku soo aragnay halkan aanu joogno waa inaan u wada shaqeynaa si ay tahay Soomaalinimo oo Mareykan ah dimuqraadnimo inaan wada shaqeyno haddii Soomaalideena ay isku xiran tahay haddii Soomaalideena mar walba ay isku tiiran tahay kan xanuunsan kan kursiga ku fadhiya oo ay isdareensan yihiin maanta wiilka Soomaaliga uu soo bixi lahaa jabka waxa keenay kala qaybsanaanta codkeena asagooba awal yaraa haddii laakiin hal meel aan ku shibi lahayn waxa fiicnaan wax badan laga barnaa laakiin ashar baa laga bartay dib ayaa la isugu noqon doonaa waan laga heshiin doonaa hal meel baa loo socon doonaa qabaa ma laga yaabaa in gogol la fidiyo oo waxyaabo hadda la isku hayay laga garamo si aysan mardam ugu soo noqon community Soomaalida waa soo jeedin lahaa arrinka in Soomaali dhaxdeeda gogol isu dhigto oo ay ashar ka barato wixii maanta ka dhacay Minnesota oo waliba aysan Minnesota ahayn adduunka daafaheeda ay Soomaaliya oo dhan ay saameysay deeqow doorashadan inta ay socotay ilaa madaxdii Soomaaliya waxay isla daawanayeen shaashadaha social media ee Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota Soomaalida say u kala qaybsaneed marka muhiim waaye in arrinkan wax laga barto waxaan soo jeedin lahaa in cashar laga barto isla markaasina ay Soomaalidu ay gogol la dhigo gogashaasina ay isugu yimaadaan ay ku heshiiyaan